isku day inaad waqtiga ku bixisid waxyaabaha ku anfacaya isku day inaad ka tagtid waxyaabaha maalayacniga ee waqtiga ka luminaya sida TikTok iyo Facebook isku day inaad xirfad dhisatid taas waxay ku siin doontaa natiijo wax ku ool ah muddo sanad gudaheed haddii aad isku daydid inaad maalinba ka fiicnaatid 1% xaggii hore joogtay oo hore ugu yara socotid waxaad ka fiicnaan doontaa muddo sanad ka bacdiya 37% xaggii aad ahayd laakiin haddii aad 1% ka xumaatid xagga aad taagan tahay maanta waxaad hoos uga dhici doontaa waxa tahay maanta waxaynu noolnahay xilli casriya oo dahabiya oo ku hamiyeeyo qof kasta oo cadiim ahaa oo taariikhda aadamaha soo maray maanta waxaad nooshahay xilligii dahabigii the golden age xilli aad informationka iyo xogta iyo abundance ayaad maanta nooshahay haddii aad xirfado yeelan weydo xilligaas haddii aad income iyo dakhli samaysan weydo challenge bay kugu noqonaysaa muuqaalkan insha Allah hadii ilaahay waxaan kugula wadaagi doonaa 7 xirfadood oo maanta qiimo iyo value weyn ku yeeli doona income iyo dakhli badanna kusoo galin karaya soo dhawaada saaxiibayaal magacayga waa Warsame Bade waxaan channel kusoo gudbinaa tabo iyo tusaalooyin aad ku horumarin doontid naftaada noloshaada iyo dhaqaalahaaga hadii nagu cusub tahay farxad bay noqotay inaad nagu soo biirtid sidaan ka soo xigeenayo YouTube-ka boqolkiiba content dadka channel-kan daawada ama boqolkiiba content dadka Facebook-ka daawada may subscribe gareyn mayna follow gareyn waxaa farxad noo ah inaad nagu soo biirtid markastoo ay bataan dadka channel-kan ku xiran ama markastoo ay bataan dadka Facebook-ka ku xiran ama markastoo ay badanayso mawaadiicda iyo muuqaalada wax ku oolkeen soo gudbinayno farxad weyn bay noo tahay anagana way noo fiican tahay idinkana way noo fiican tahay waxaan rajeynayaa inaad nagu soo biirtid thank you arrinka ugu horeeya u baahan tahay waxa weeyaan inaad naftaada aamintid naftaada aamin qaar badan baa ku sheegi doona adiga naftaada ku sheegi doonto ku dhaad garan doonto qoran doonto waxa ma baran kartid waxa ma noqon kartid marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay believe in yourself xirfadda koobaad ee u baahan tahay inaad master garaysid waa inaad naftaada aamintid haddii aad adigu naftaada aaminin cid ku aaminaysa ma jirto war sacabkaaga kaagama horeeyo cid adigu aad maanta u kicin naftaada oo oran xirfaddan baan baranaya waxaan baan samaynaya waxaan baan noqonaya age ka doontid noqo 15 jir noqo 20 jir noqo 50 jir noqo ma yarid ma weynid maanta wax kasta aad baran kartaa taariikhda maanta waxaynu haynaa 50 jiro 60 jiro 30 jiro 40 jiro maanta qof walba gaaray qof walba time zone buu ku jiraa time zone kaagaad ku dhex jirtaa waxaa jirta dad iyagoo late koogii 60 jiradoodii iyo wixii ka dambeeyay ilaahay albaabo waaweyn u furay maantana adiga way dhici kartaa in lagu furo haddii aad maanta yar tahay aad waqtigaaga ka faa'iidaysatidna waxay kuu noqonaysaa wax weyn marka waxa koobaad ee u baahan tahay wax weeyaan inaad naftaada aamintid aamin naftaada believe in yourself haddii aanad adigu naftaada aaminin haddii aanad aaminin inaad xirfad baran kartid wax noqon kartid wax samayn karaysid cid haba yaraad ku aamini karaysaa ma jirto arrinka koobaad ee u baahan tahay wax weeyaan naftaada aamin believe in yourself haddii aan yimaado xagga xirfadaha maanta waxaa jira xirfado badan oo valuable ah ama qiimo ku yeeli karaya ama income iyo dakhli fiican aad ka samayn karaysid dad maanta u fiirsatid dadka ugu hardworksan ama dadka hardworking-ka dadka dhismayaasha ka shaqeeya xamaaliga ka shaqeeya sidoo saacadood soo jooga waxay hantaan waa lacagta ugu yar waayo maxaa keenaya waxay value-ga provide gareynayaan ama value-ga ku darayaan ayaa ka duwan ka dadka xirfadda leh ay ku darayaan arrinkaas markii aan fahmay noloshayda wax weyn baa iska bedelay marka waxaan u baahannahay muhiimadu maaha suuqu kuma abaal mariyo qofku intuu hardworker yahay ee suuqu wuxuu ku abaal mariyaa qofkan intee leeg buu value gelinaya suuqa marka taad u baahan tahay waa taas all you need is a value inaad suuqa value ku dartid inaad qiimo ku dartid haddaad qiimo ku dartid oo value ku dartid waxaad gaaraysaa meel fiican baad gaaraysaa waxa bay yaraatay ku istaajin karaya ma jirto haddii aad xirfadahan 7 xirfadood aad baratidna noloshaada wax weyn bay ka bedeli doonaan 2023 xirfadda ugu horeysa haddii aan ku horeeyo waa AI waa one of the most wixii ugu horeeyay sanadkan 2023 bedelay dhammaan siday wax u socdeen oo dhan waagii hore waxa la oran jiray informationka iyo xogta waxay isku bedeshaa 5 sanaba hal mar laakiin informationka iyo xogta maanta waxay isku bedelaysaa every single day go baa ku dhacaya haddii aanad korin marka taasna waxa keenaya waa AI weyn AI-du informationka siduu bini'aadanku u process gareynayay ay fudaysay waagii hore waxay ahayd markaad Google tagtid aad ku qortid xog ama information aad raadisid way adkayd laakiinse maanta ChatGPT iyo Midjourney iyo dhammaan toolasha badan ee AI-ga soo baxay waxay dhammaan game changer ku sameeyeen sidii xogta iyo informationka loo helay marka AI inaad baratid ama AI bombing waa sida keywords la weydiinayo maanta qof kasta ma noqon karayo AI si fiican uma garan karayo laakiin keywords ka ku qorisid weeyaan marka keywords baa jirta anigu sanadkan insha Allah hadii la hayraado 2023 inta uu dhamaanayo waxaan rabaa inaan si fiican u master gareeyo sidee ayaa loo isticmaalaa ChatGPT hadday noqoto book research-kayga oo iga caawinaysa oo research badan oo book-ayga Allahumma sa'an waqti badan iga bixilaa iga caawisa muuqaaladeeda research-yadan u soo sameeyay iga caawisa marka hadii aad adiguna baratid wax noqon kartaa copywriting baad isticmaali kartaa social media marketing baad isticmaali kartaa web designing baad isticmaali kartaa anything video-gan Allahumma sa'an create gareyn aad create gareyn kartaa marka xogta iyo aqoontu meesha waa ta ugu sareysa marka AI hadii aad baratid waxaad much faster aad process gareynaysaa informationka qofka caadiga ah ee aan isticmaalin una process gareynay marka hadii aanad business-kaaga u isticmaalin hadii aanad school-ka u isticmaalin hadii aanad si regular basis aanad u isticmaalin dib u dhacaysa hadii aad isticmaashidna qof kasta oo dhan nawaad ugu horeynaysaa marka AI waa xirfadda koobaad ee tahay maanta inaad master garaysid tag Skillshare tag Allahumma musta'an meelaha kale muhiimka ee laga barto tag YouTube-ka baro AI insha Allah hadii la yiraahdo waxay ku noqon doontaa xirfad aad awood
badan ku yeelatid xirfadda labaad ee maanta haddii aad baratid ama baahida ugu weyn ay ka jirto waddankeeni waxa weeyaan web design weyn inaad baratid sida website loo design gareeyo website design markaan ka hadlayno waa e-commerce ha noqoto information product ha noqoto maadaama adduunkii online noqday qof walba waa inuu present ku leeyahay funnel ama funnel ha noqdo ama informational website ha noqoto ama business website ha noqdo ama e-commerce site ha noqdo dhammaan saytadka kala duwan ee la sameeyo ayuu qof kasta u baahan ama portfolio ha noqoto everything Allah musta'an way farbadayeen loo sameeyo tuulasha lagu sameeyo kala duwan WordPress baa jira Webflow baa jira Wix baa jira Squarespace baa jira Shopify baa jira way badan yihiin marka inaad baratid sida website loo design gareeyo waa xirfadaha ugu awood badan leh maanta waxa jira dad teamka ilamada oo agency ay la shaqeeya Factory Digital la shaqeeya oo boqolaal iyo mararka qaar kood $1 gaara bil kasta inay ka sameeyaan web design marka haddii aad xirfadda baratid waxay ka dhigi kartaa xirfad valuable oo meel fiican ku gaarsiisa marka waxaad u baahan tahay waxa weeyaan inaad baratid sida WordPress loo sameeyo sida Wix loo sameeyo sida Squarespace loo sameeyo website baa jira tutorial aan soo sameeyay mid Shopify aan ka soo sameeyay mid aan ka soo sameeyay Wix YouTube-ka ku jiraan labadaba soo daawan kartaa waad baran kartaa basic tan xagaas baad ka sii kori kartaa marka web design maanta inaad garanaysid waa xirfad ku siin karta awood waa xirfad ku siin karaysa authority waa xirfad ku siin karta inay income iyo dakhligaagu sare u kaco marka waa xirfad ay tahay maanta inaad master garaysid 2023 this is the best time aad master gareyn lahayd waatin hore u soo nidhi waa inaad aamintaa inaad baran karaysid xirfadahan haddii aanad aaminin qofku aaminaya ma jirto xataa anigaana ku aaminay xirfadda kale ku xigtay tahay iyadna inaad baratid waxa weeyaan maanta video editing maanta waa game content is a king maanta waxa labadeena iskeen soo gaarsiinaya waa videogaas weeyaan muuqaalkaas waxa isku xidhay waxa weeyaan waa editka uu soo maray editku storytell baa ku jira footage baa ku jira music baa ku jira waxa ku jira transitions baa jirta uu marayo Allah musta'an sound effect baa jira marka video editing aad baratid maanta waa one of the most valuable weeyaan skills weeyaan waa xirfadaha ugu muhiimsan ay tahay Allah musta'an aad baratid haddii aad baratidna qiimo ku yeeli karaya waxaad ugu shaqayn karaysaa boqolaal meelood maanta kaga shaqaysan karaysid adduunka isaga ku baahan haddii aad creativity-gaaga iyo video editing waxa jirta dhalinyaro badan oo ila soo xiriiro oo igu dhahdo content-kaaga ku qabano maybe marar badan fariimo badan bay soo gaaray email badan laakiin siday u sameynayaan ama siday waxa u qabanayaan waa si laga fiican yahay haddii aad video editing baranaysid wadnahaaga duldhig sidii aad xirfadda aad master ugu noqon lahayd master maaha basic waxyaabaha yar basic ama waxa la yiraahdaa qofka suuq wuxuu si u abaalmariyaa qofka caadiga si caadi suuq laakiin se qofka excellence-ka ama qofka shaqadiisa sida excellence-ka sida ihsaanka ugu wanaagsan u qabta wuxuu u abaalmariyaa sida ihsaanka markaad xirfad baranaysid ama xirfadaad sameynaysid xirfadda isku day inaad sida basic u samaysid waxaad qabanaysid isku day inaad u qabatid ihsaan meesha ugu sarreysay aad ka gaarsiin karaysid inaad ka gaarsiisid xirfadda kale iyadna ku xigta waxa weeyaan content creation iyo content management haddii aad maanta baratid sida content loo create gareeyo san muuqaaladan oo kale aan soo create gareyno you become one of the most valuable person in our society Allah musta'an bulshadeena way u baahan tahay maanta cid content u create gareysa cid nuxur u create gareysa cid fikrad la wadaagto oo fikradahooda soo bandhigta content creators maanta waa movers iyo shakers industry ku jira qofka maanta dhayirsanaya ama content-ka aan sameynayn xilib uu jirto uu ku qoomamayn doona marka haddii aad rabtid inaad mover iyo shaker noqotid you have to come on the camera and create content waa inaad kamarada hor timaada mararka qaarkood English kaga bata sorry waxyaabahan consume gareeyo ama waxyaabahan dhageysto ama waxyaabahan maqlo maadaama qurba ku noolahay dad badan oo Soomaaliya interaction isma aragno wada sheekaysan nagama dhex dhaco inta badan mustaqil in kastoo saragna tiimkan wada shaqeyno aan ismaqalno laakiin marar badan waxa dhacda inaan waxaan dhageysanaya ama waxaan akhrinaya ama waxaan daawanaya ama waxaan adu qaadanaya waxay u badan luqadda Ingiriiska marka marar badan saas bay u badan tahay luqadda Ingiriiska ay ka soo dhacdo walaalahayna aan fahmayn aad baan iga raali galnay marka waxaad u baahan tahay content maanta waa waxa ugu awooda badan marka baro sida muuqaal fiican loo create gareeyo loo gaarsiiyo dadka loo dhiso storytell-kaaga dhis video sida loo sameeyo baro video-ga Allah musta'an waa one of the best waxaad noqonaysaa dadka ugu qiimaha badan leh maanta community-geena ku jira waan ku ballan qaadayaa maalin dhaweyd muuqaal baa jiraan soo gelinay hadda YouTube sidee baa loo sameeyaa resistance badan baa jirta muuqaalka haddii aan daawan soo daawo sidee baa YouTube loo sameeyaa marka content creation ama content management inaan baa jira ama team baa jira hadda kala shaqeeya content-kayga la manage gareeya they are one of the most valuable people company-ga ku jira weeyaan marka inaad noqotid Allah musta'an qof qiimo leh oo xirfadaasi qiimo weyn bay ku yeelanaysaa marka waa inaad barataa content-ka sida loo create gareeyo iyo sida Allah musta'an loo manage gareeyo labada haddaad baratid waxaad noqon doontaa 2023 qof valuable tan ugu dambaysa haddii aanad garanayn laakiin inta hore oo dhan aad garanaysid way kugu adkaanaysaa valuable ma noqonaysid sales iyo marketingku waa one of the most valuable waa qulqul wareega dhiiga waa qulqul wareega businesska ama one person business noqo ama corporate noqo ama cidda
cidaad nootid noqo haddii aanad saleska iyo marketingka garanayn haddii aanad garanaysa wax loo iibiyo haddii aanad garanayn storytelka way kugu adkaanaysaa marka waxaad u baahantahay inaad baratid one of the most valuable skills aan noloshayda bartay waa how to sell sidee wax loo iibiya marka inaad baratid sida wax loo iibiyo haddii aanad waxba iibin karayn way kugu adkaanaysaa waayo businesska wuxuu u baahan yahay in wax la iibiyo in wax la hugo tusaaleeyo wuxuu rabaa in wax la dhaqaajiyo aan taas baana allah mustacaan ka dhigi karaysaa inay wax weyn noqoto marka waxaad u baahan tahay inaad baratid sida wax loo iibiyo inaad baratid weeyaan sidoo kale inaad baratid marketing sidee baa marketing loo sameeyaa you have to promote you have to know how to make marketing waliba gaar ahaan social media marketing waa midda ugu weyn weeyaan ee maanta ka dhigi karaysa valuable marka xirfadaha aynu soo sheegnay in muuqaalkeena kaga soo hadalnay haddii aad baratid haddii aad wadnahaaga dul dhigtid haddii aad fadhiisatid day in day out haddii aad waqti go'aan u samaysatid imika maanta way fududahay inaad qof successful noqotid waayo dadkii oo dhan distraction bay ku wada jiraan dadkii oo dhan xaggan baa temptation bay heleen dadkii oo dhan waxay la qabatimeen waxyaabaha yare maalayacniga haddii aad fadhiisatid oo everything wax kastoo noloshaada kusoo maray aad noo tidhaahdid keliya inaad xirfadda mishaarta saartid midda kale waan kuu sheego waa digniintan ha isku dayin intaasoo xirfadood inaad hal mar wada baratid just pick one thing anuu imika sanadkan oo dhan AI baan baranayaan allah mustacaan sidee bay AI u shaqaysaa sidee baan businesskayga u gudagelin karaa sidee baan web design ugu isticmaali karaa sidee baan allah mustacaan contentkayga ugu isticmaali karaya sidee baan buugayga ugu isticmaali karaya sidee baan businessyadayda kale allah mustacaan ugu isticmaali karaya that's so strong maanta waa awood weyn bay leedahay AI marka isku day inaad hal xirfad qaadid halka xirfadna aad sida ragayga u baratid ood uga soo dhalaashid waxaba yaraatay ku istaajin karaya ma jirto haddii laakiin aad dhowr xirfadood isku qaadid way kugu adkaan doontaa waayo xirfado badan ood hal mar wada qaadatid challenge bay kugu noqonaysaa marka isku day inaad one day at a time one task at a time one skill at a time inaad focus ka saartid muddo 3 bilood ka bacdina waxaad yaabi doontaa waxaad oran doontaa wow maantan Zoom baan ku wada jirnay ardayda faca Korea arday baa ii sheegay ugu lahaa Shopify store-kayga ugu horreeyay markii aan dhisayay aad bay ugu adkaa imika WordPress baan dhisay buu Squarespace web design ayaan sameeyaa buu oo ku shaqaysta marka inaad xirfad maanta yeelatid one of the most valuable skills ku gaarsiin karaya meel sare weeyaan xirfadda qiimo ku yeeli karta maanta xilligan ay noolnahay 2023 haddii aad baratid waxa weeyaan social media marketing is the one of the most powerful tool maanta xilligan ay noolnahay qofka xirfadda garanayay wuxuu access u leeyahay 2 bilyan oo qof inuu wax tuso 2 bilyan oo qof inuu ad u rangareeyo marka maanta xilli ay ka fiican tahay haba yaraatee ma jirto inaad social media marketing baratid social media marketing waa one of the most valuable skills ee maanta ka dhigi karaysa inaad valuable noqotid marka laga hadlayo e-commerce ama marka laga hadlayo xirfadaha allah mustacaan waa kaga hadalna channelkeena waxa weeyaan social media marketing waa number 9 bay ka ciyaarsan number 9 haddii aad social media marketing aad baratid maanta waa xirfad valuable qiimo ku yeeli karta dadkan aad ku charge gareyn karaysid lacagaad u fiican waa xirfad ka duwi karta qof kasta oo competitive kaaga waa xirfad ka dhigi karaysa inaad wax marka social media marketing soo kala baxaa way badan yihiin laakiin inaga inta wadankeena ka shaqeysay waa Facebook kaliya ta ka shaqeyn malaynaya TikTok iyo Google wali uma soo furin Google Ads iyo YouTube kii looma soo furin laakiin Facebook Ads hadii aad baratid sidee ba campaign loo rangareeyaa sidee ba campaign-ka intee adset loo sameeyaa 4 video ama adset ka waxa la yiraahdaa Allah musta'an 4 qaybood isku xigta marka sidee ba loo rangareeyaa sidee ba data soo noqota loo analyze gareeyaa Facebook wuxuu xogsinaya data maxay dadku daawanayaan maxay dadku xiiseynayaan maxay dadku diidayeen haddii aad baratid markaas taas waxay ka dhigi karaysaa inaad noqotid qof valuable adiguna access baad u yeelan karaysaa inaad businesskaaga iyo service-kaaga ku xayeysiisid social media marketing maanta social media marketing businesska ka hada ama cidda ka hadhay waa cid dib u dhacday weeyaan marka social media marketing haddii aad baratid waa xirfad valuable ka dhigi karta waa xirfad cid kastana ku horgeyn karaysa maaha markan leeyahay xirfadaha la bartana maaha basic laakiin inaad noqotid excellence in inta leg bay ku qaadan kartaa social media marketing aad baratid social media marketing aad baratid waxa ku qaadan kartaa bil ilaa iyo 3 bilood inaad excellence ku noqotid waxaan rajeynayaa inuu muuqaalkan wax kaaga baxeen dhamaanteen waxaan u baahanahay qof ina dhiirigeliya dhamaanteen waxaan u baahanahay qof ina challenge gareeya dhamaanteen waxaan u baahanahay qof inagu taageero waxyaabaha inuu rabno haddii aanad adigu qof ka helin adigu qof u noqo haddii aanad adigu qof ka helin adigu gaar ahaan naftaada u noqo waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu wax kaaga baxeen waa inooyo muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tabahan muuqaalkan kula wadaagi doona waa tabaha iyo tusaalayaashii iga kaxeeyay inaan haadala war gaari wada igana dhigay dalxiise adduunka meeshuu doono kaga shaqeeya haddii la yiraahdo aqoontu waa awood barashada si wax loo bartina waa awoodda ka sii sareysa barashada si wax loo barto kumanaan kun oo sanadood bay ku qaadatay ibn aadanku inuu ka soo gudbo xilligii beeraha ilaa iyo xilligii warshadu markay yimaadeen ayaa waxa isbedelay wax kasto bi ibn aadanku haystay waxa la soo galay xilligii adeega ama service age baa la soo galay waa laga soo baxay maanta waxaynu noolnahay communication iyo information age waxa dhammaan media aad arkaysaan iyo waxaasoo dhan waxay ka shaqeynayaan sideeba ibn aadanka isugu xidhi lahaa communication iyo information age na knowledge is a king aqoonta ayaa ah awoodda ugu weyn maanta dunida korkeega taala maanta waxa jira hal qof
oo company 100 milyan oo dollar keligii rangareynay maalin dhaweyd waxaan arkay Australia nin dhalinyaro oo Australia ku nool wuxuu leeyahay company-gaas waa gaming company buu leeyahay $100 million evaluation buu noqday shaqaale muu hayr karin intii hore keligii buu ahaa marka maanta waxaynu nool nahay in company 100 milyan oo dollar aad keligaa dhisi waxa keenayna waa awoodda maanta xilligan aynu nool nahay muuqaalkan insha Allah diilaaro waxaan kugula wadaagi doonaa 7 hab oo ku dhisi kartid xirfadahaaga ama barashada wax loo barto ama sidaad xirfad u baran lahayd 7 arrimood oo kuu sahli doona inaad xirfad kasta baran kartid xirfadaha digitalka aad noqoto kuwa kale ha noqoto ayaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal magacayga Horsana Bade waxaan channelkan iyo Facebookan ku soo gudbinaa tabo iyo tusaalooyin aad ku horumarin kartid naftaada noloshaada iyo dhaqaalahaaga haddii aad nagu cusub tahay farxad bay noo tahay inaad nagu soo biirtid san ka soo xiganaya Facebook iyo YouTube boqolkiiba konton ka mid ah dadka channelkan iyo Facebook daawaday nagumay soo biirin mar kasta oo ay badato channelka ku xiran ama mar kasta oo ay badato dadka Facebook ku xiran waa mar kasta oo ay kordhayaan mawaadiicda iyo waxyaabaha faa'iidada leh bulshadeena kordhinayna nagala qayb qaado inaad nagu soo biirtid aad baad maasan tahay waxaan hore uga soo hadalnay in xirfado la bartay inay muhiim yihiin laakiin sidoo kale waxa muhiim ah sidee ayaan xirfad u baran karaya sidee baan xirfad u master garan karaya taasina waa xirfad iyada laftigayga skill barashada sida wax loo bartan waa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee bartay muddadii la soo dhaaf iskuulka waxa la inoogu dhigaa waxa la baranaya ama maadada la baranayo in bal inoo dhigaa laakiin se la inooma dhigo barashada sida wax loo barto haday noqoto speed reading haday noqoto sida wax loo xifdiyo haday noqoto waxa soo dhan cidi kuguma barayso iskuulka laakiin waxa lagu dhigayaa uun shayga la baranayo insha Allah hadii la yiraahdo waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa 7 arrimood oo ka dhigi karaya inaad baratid xirfad kasta sida ugu dhaqsiyaha badan leh iyo sida ugu muhiimsan ay tahay arrinka koobaad ee u baahan tahay si aad xirfad u master gareysid ama xirfad aad u baratid waxa weeyaan inaad jebisid qufulada maskaxdaada ku xiran marar badan waxaan iska dhaadhacsiinaa been badan baa ayaan Allah musta'an iska dhaadhacsiinaa beenta waxa kamid ah aqoontu waa awood aqoonta kaligeed awood ma aha aqoonta natiijo keenayso baa awooda aqoonta result keenayso baa awooda imisa aljabra la inoogu soo dhigay iskuulka iyo jaamacad iskuuladeenii iyo secondaryadeenii qof isticmaalay mu jira anu aljabra ma isticmaala Allah musta'an way jiraan dad saynisyaanada iyo waxyaabahaas in la isticmaalayo laakiin maanta nolosha caadiga waxba kama qabato marka waxaad u baahan tahay waxa weeyaan inaad jabisid aqoontu waa awood aqoontu waxa awooda aqoonta ku siinaysa natiijo result ku siinaysa ama adiga result natiijo ku siinaysa ama dadka kale result siinaysa qufulka koobaad doonaysa inaad iska jabiso waa kaas qufulka labaad ee waxba lama baran karayo ama daabaan lahay ama kan baan lahay ma jirto xilli maanta ay ka fiican tahay oo wax baran karaysid maanta waxaynu haynaa hooyooyi waaweyn oo quraanka xifdiyay waxaynu haynaa dad waaweyn oo jaamacada ka baxaya marka rabitaan baa jirta kartida iyo rabitaanku way kala duwan yihiin marka waxaan rabtid ee ka go'an tahay 100% inaad wadnahaaga dul dhigtid oo baratid maamarawad wax kasto dhacaya waxaas waad baranaysaa daada doontida haw waqtigaagu sidoo doonahaado laakiin rabitaan iraada u baahan tahay iraadadu way ka sareysaa ama rabitaanku ka sareeya kartida ama waxa la qaban karayo marka waxaad u baahan tahay rabitaan talabaad silsilada labaad u baahan tahay waxa weeyaan inaad karti waxaas hibo ma leeyahay waxaas waxba ma leeyahay sheekan iga sheekeynaya ibn aadamku waagi hore wuxuu aaminsanaa inaan lagu ordi karayn 4 daqiiqo wax ka yar 1 kilomitir ama 1 mayl laakiin Roger Lawrence oo Ingiriis ahaa oo Orodiyaan ahaa ayaa wuxuu aaminay inuu dhaafi karayo 4 minute iyo waxa la aaminsan yahay deeta muxuu naftiisa ka dhaadhacsiiyay inuu jabin karayo deeta rekoorkii uu jabiyay maanta 100 iyo 10,000 oo waxa jirta qof oo jabiyay rekoorkii maalinka si dambiso la sii jabiya marka ibn aadamkaasi iyo kan muu kala duwaneen laakiin se aaminaad ay inaad aamintid inaad wax baran karaysid waa xirfada koobaad ee u baahan tahay inaad master gareysid hadii aad adigu aaminin cidna kuma aaminayso marka aamin inaad baran kartid xirfadahan digitalka aamin inaad baran karaysid xirfadahan aynu ku soo gudbino meesha ugu horeysa waa aaminaad weeyaan haddaanad aaminsaneyn waxaanad aaminsaneyn ma heshid mana qaban karaysid mana sameyn karaysid marka ugu horeysa waxa in maskaxdaada program sidooda traadid war waxaan waan rabaa waqti bay ugu qaadanaysaa sax waan ogahay marka xirfad la baranayo xirfada dadka barkood ba hore u baranaya dadka barkood baanan waqti ay ku qaadanaysaa dadka barkood ba it depend waxay ku xiran tahay qofka ku xiran tahay marka waa sida haddaan maanta wada orodno dadka barkood ba orodka dheereynaya laakiin se as long as ayr xataa haddaad lugayna sidoo socotid kama dambaysta meesha waad gaaraysaa marka waxaad u baahan tahay markaad xirfad rabtid inaad bartid inaad direction ku saxatid iyo inaad aamintid arrinka labaad ee u baahan tahay haddii aad doonaysid inaad xirfad master gareysid ama xirfad aad baratid waxa weeyaan inaad xirfada qalatid ama aad qashid sidii neefka oo kale inaad qowracatid xirfadu way weyn tahay imika maanta oo kale haddii aad rabtid inaad e-commerce baratid ama inaad baratid social media marketing ama web design inaad xirfadaha mental energy u baahan inaad baratid haddii aad doonaysid xirfad isku wada qaadid marka hore xirfada qal xirfadu imisa kala baxdaa sidee bay tahay asaasiyaadkayga basicayga muxuu yahay maxaa hooyo u ah xirfadaha haddii aad umahaadkooga barataan waxan wax isku soo noqnoqo marka digital laga hadlayo oo wax isku soo noqnoqonayo waa baaran baad ka arkaysaa Allah musta'an marka dambe waxa ku soo baxaya waa baaran marka maxay tahay waxyaabaha basic u ah umahaadka u ah maxay yihiin marka waxyaabaha umahaadka u habaro haddii maanta rabtid inaad e-commerce baratid e-commerce 3 qaybood buu kala baxaa
way jiraan qaybo kale oo yaryar oo soo gala 3 ilaa 4 baa la yiraahdaa marka ugu horeysa Allahumma sa'an inaad product haysatid oo product aad iibinaysid inuu jira productkaas ama physical buu noqon karaa ama digital buu noqon karaa waa inaad product haysataa ama service buu noqon karaa way kala duwan yihiin Allahumma sa'an laakiin marka product iibinaysid productkaas ama digital buu noqon karaa ama physical product waa inaad soo heshaa product marka soo heshid waa inaad taqaana sida store loo sameeyo ama online store ama website ama sida loo sameeyo waa inaad barataa saddexaad oo ah waa inaad barataa sida social media marketing loo sameeyo waa macaamiishaadu kuma xidhna localkan macaamiishaadu waa macaamiisha internetka dhex jooga marka saddexda hadii aad baratid waxyaabaha kalena way ku fududaanayaan markaad baranaysid xirfadii oo dhan ha isku wada qaadin dhamaanteed xirfadda jajabso oo dhowr meelood kala jajabso saddex meelood kala jajabso okay e-commerce baan rabaa inaan barto waa inaan bartaa Allahumma sa'an productyada kuwa ugu hodsan maxay yihiin kuwa loogu iibsiga badan yihiin maxay yihiin sideeba product loo soo helaa one week iska qaado hal isbuuc iska qaado halka isbuuc research ku soo sameeyo part note taking ka soo qaado fahan arrinka labaad u baahan tahay waxa sideeba online store loo dhisaa online store marka la dhisayo platformyada la isticmaalaa maxay ku kala duwan yihiin kan fahan wixii markaad fahamtid way ku kala baxaysaa arrinka saddexaad social media marketing social media platformyo badan baa jira Google Ads baa jira waxa jira Facebook baa jira way kala duwan yihiin TikTok baa jira Snapchat baa jira way kala duwan yihiin keeban Allahumma ta'ala maxay ku kala duwan yihiin xageeban platform keeban rabaa inaan target gareey marka inta fahamtid the whole concept of fahamtid okay maxaad u baahan tahay xirfadii marka qalo oo yaryareyso dhowr qurub u kala dhigo hadba qurub focuskaaga isugu geey hadba qurub awooddaada isugu geey laakiin haddii aad tiraahdo xirfadii weyn oo sideedii u taala ayaan rabaa inaan isku wada qaado oo rabaa inaan hal mar natiijo ka wada keeno challenge bay kugu noqonaysaa horina kugu adkaanaysaa midda kale markaad xirfadda rabtid inaad baratid xirfadda sidii project management u samayso project management badan baa jira aan waxaan isticmaalaa Trello okay hadda maanta xirfad baan rabaa inaan barto xirfadaas waa inaad kugu caddahay Allahumma musta'an waa in sidii goolka kugu caddahay Trello isticmaal Trello soo qaado Trello saddex border buu ku siinaya Allahumma musta'an saddex buu kugu kala saaraya saddexda to do doing iyo done marka uu kala saaro Allahumma musta'an xirfadan maxaa laga baahan yahay maxaan rabaa inaan sameeyo to do deed maxay tahay intaas and then complete Allahumma musta'an marka isku day inaad project management timaashid project managementyada la isticmaalo waxa kamid ah Trello kamid ah aad buu fiican yahay Trello inaad tijaabisaan dhamaantiin aad baan ugu talinaya xirfadan aad rabtid inaad baratid isku day xirfadan inaad waqti u xidhid book baa waxa jiro la yiraahdo the first 20 hours booga quraag wuxuu kaga hadlayaa 20 saacadood inaad xirfad kaste waxyaabaha ummahaadka ama waxyaabaha caadiga aad ku baragalisid ama xirfadaad aad expert kuma noqonaysid laakiin aad basic fahmaysid marka 20 daqiiqo oo focus sida miishaarta wuxuu kala goynaya hadii aad saartid wuxuu noqonayaa xirfadaas waxaad master gareysay bay noqonaysaa marka waxaad u baahan tahay 20 saacadood 20 ka saacadood okay maxaan sameeyaa okay 20 saacadood baan baahanay 20 saacadood in inta lag bay u qaadan kartaa 20 ka saacadood inayna kala go lahayn muhiimadu ay tahay 20 saacadood baad tiri maalinka hadii aad tiraahdo 90 daqiiqan gelinaya 90 ka daqiiqo fadhiiso iska xir telefoonkaaga iska xir distraction waxyaabaha kugu sameynaya computerkaaga waxa jirta app la yiraahdo self control baa jirta oo isticmaalinta badan markaan projectiyada raba inaan ka shaqeynayo oo saga xidho telefoonkaaga qol kale kaga ima ama intaad flight mode ka gelisid meel iska dhig just 90 ka daqiiqo waxa isku daydaa anu inta badan waxa sameeyaa waxa isticmaala Pomodoro Fox dan 25 daqiiqo ku siinaya 25 ka daqiiqo markaad concentration focus u dul joogtid 5 daqiiqo break aad qaadanaysaa 25 daqiiqo ayaad dul joogaysaa 5 daqiiqo break aad qaadanaysaa marka 90 ka daqiiqo waxaad arkaysaa adoo sida ragayga uga dhax baxay oo distraction kugu dhacay laakiin hadii aad rabtid inaad isku wada qabatid telefoonkaaga iyo xagan ku yeelan notification ku soo dhacay xirfadii aad rabtid inaad baratid hadii aad guriga joogtid Allahumma musta'an marka xirfadaada isku day inaad waqti go'an oo kaligeed focus sida miishaarta wax u goynaya kaligeed toos u saartid iska xir telefoonada maanta xilligan aynu u joogno temptations badan baa jira waxyaabo badan oo waxa jirta ku siinaya dopamine-ta waxay ahayd markaad shaqo qabatid ama shaqada aad qabatid ee dhamaysid waa dareenka la hele ee heshid weeyaan waxyaabahan aad ku tijaabin waxa kamid ahayd Instagram-ka kale aad buu iyo TikTok dopamine-kooga aad buu ayuu badan marka as a creator ama as entrepreneur imka waan iska yareeyay Allahumma ta'ala Instagram maanta marka waxa jira temptations badan oo ku siinay temptations ama ku siinay dopamine inaad heshid video aad daawatid ama wax yar qosol daawatid waxa dareemaysaa happy marka dopamine taas waa dheecaanka maskaxdeena siinaya dareenka happy marka dareenkaasna muxuu ku imanayaa waa dareenka ahayd inaad fariisatid shaqada qabatid marka isku day distraction in iska xidid isku day inaad Facebook iyo TikTok iska xidid isku day inaad naftaada discipline waa waxyaabaha ugu adag ee waxa la yiraahdaa discipline waa waxay tahay inaad qabatid xilliga ay tahay ama dareen ama dareem muhiimad waa taas weey marka inaad naftaada ku qasabtid oo xilliga ay tahay waan sameynaya aad tiraahdo waan sameynaya arrinka kale isna sameyn karayso ee muhiimka waxa weeyaan inaad calendarkaaga block samaysatid waxa ugu qaalisanaya haysanaa waa waqtigeena adduunka waxaynu ku wada sameynaa 24 saacadood 24 saacadood buu madaxweynuhu haystaa 24 saacadood buu qof kasta ayba haystaa laakiin waa waqtiga sidee ba looga faa'iideystaa maxaanad gelinaysaa waqtiga weeyaan muhiimadu weeyaan dhammaanteen wada haysanaa marka inaad samaysatid calendarkaaga ku xisaabtid okay maanta maxaan qabanayaa kan maxaan samaysanaya inta badan waxay ku fiican tahay hadii aad xirfad rabtid inaad master gareysid inaad waqti u xiran samaysatid arrinka kale isna ku xigay tahay inaad samaysid waxaan focus and concentration focusku waa super powerka ugu weyn maanta adduunka yaala qofka wax focus gareyn
karaya meel fadhiisan karaya hal saac hal shay ka shaqayn karaya ama wax qoritaan ha noqoto ama wax akhris ha noqoto ama wax kala sameyn ha noqoto qofkaasi wuxuu ka noqonayaa bulshada labeenta sida labeentu xagga sare ugu marto ay ugu maraysaa waayo bulshadeena temptations badan baa maanta ku dhex jira maanta bulshadeeni dadkii wax sameyn lahaa dadkii wax cunin lahaa dadkii wax waxayn lahaa maanta waxay ku wada furuseen telefoonkaas marka qofka wax sameeya wax fiican qabta tayo leh shaqo fiican oo tayo leh qabta wuxuu noqonayaa labeenta ugu sareysa bulshadeena waan ku ballan qaadi doonaa haddii aad samaysatid focus iyo concentration dad baa jira oo shaqay qabanayaan ama shaqada ay qabanayaan focus si fiican wax ma focus garan karayaan maanta inuu qof fadhiisto oo meel fadhiistay way ka adag tahay inuu qof socdo oo maanta dhan soo shaqeeyo shaqada fadhiga la yiraahdo waliba dadkeena knowledge worker-ka ama dadka raba inay sida doo kale inaad haddaad rabtid inaad xirfad baratid haddaad rabtid inaad xirfad bixisid haddaad waxa aan sameynayno wax qoraalka wax akhriska waxaasoo dhan maanta waxa ka fudud inaad meel heblaayo tagtid baa ayaa ka fudud waayo waxaan aad helayso temptation laakiin tan inaad fadhidid oo naftaada leelisid oo tiraahid no wax kastoo dhan no aad tiraahid way kugu adkaanaysaa marka focus iyo concentration ku waa awoodda ugu weyn maanta qofka iska leeyna wuxuu noqonayaa qof sida labeenta ugu bulshada ugu dhexbax ayuu uga dhex bixi doonaa arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan practice man xirfadda haddaad daawatid maanta tutorialka wixii tutorial youtube-ka ku jira ama koorsooyin ku jira ood maanta dhan daawatid laakiin aanad practice gareyn natiijo ma helaysid practice-ku waa waxa natiijo ku siinaya practice man practice-ku waa waxa ugu weyn ee tahay allah musta'an inaad samaysid marka waxaan daawanaya xaliban interview daawanayay xabiib fiiriyaanka allah musta'an muslimka ee russianka one of my role models oo dadka qiyamka iyo values-ka leh aad baan u jeclaystay marka waxyaabo ka hadlay waxa kamid ahayd inaad concentration-kaaga iyo focus-kaaga wuxuu ku leeyahay marka cage-ka lagu dhex jiro waxaad u baahan tahay deganaan instead emotion-kaaga hadduu markaco ama emotions badan baa kugu imanaya 20,000 oo qof baa ku daawanaya marka emotions badan baa baad taasna waxaad ku waxayn karaysaa buu ku leeyahay wixii aad soo practice gareynaysa ama wixii aad ku soo celcelinaysa marka practice-ku waxa la yiraahdaa practice-ku wuxuu u sameeyaa progress haddii aad maanta xirfad baranaysid oo xirfadda waxba ka garaneyn laakiin aad tirahdid normal wax kastoo dhacaya waxaan practice gareynaya waan ku celcelinaya haddii ay ahayd inaan hal mar sameeyo 5 jeer baan sameynaya haddii ay ahayd inaan hal mar sameeyo inaan website design gareeyo 5 website baan sameynaya normal ka ugu horeeyo ugu adkaanaya sidoo doona ahaan waan ku celcelinaya waxa bay raatay ku joojinay midto ugu muhiimsan waa tan xirfad kastoo baratid ama method kastoo taqaanid ama hab kastoo taqaanid ama wax kastoo sameyn karaysid haddii aanad practice gareynin practice haddii aanad practice gareynin way kugu adkaanaysaa marka haddii barashada soo wax loo barta haddii aad rabtid inaad xirfad baratid waa inaad practice gareysaa ood ku celcelisaa 100,000 jeer arrinka kale isna muhiimka waxa weeyaan inaad sawiratid ood maskaxdaada sawirka aad ku heshid adigoo xirfadda bartay adigoo practice gareynaya mar kastood fursad u heshid inaad sawiratid ilaa maskaxdaada ay ka qaadanayso waxa jirta daraasad Mareykanka lagu sameeyay ciyaartooyo dugsiga sare ayaa loo kala qaybiyay 3 baa loo kala qaybiyay basketballka ciyaar jireen 3 baa loo kala qaybiyay qayb waxa lagu yiri waxba sameeynin kaliya waxaad sameysaan intaad fadhiisataan sawirta inaad basketballka ku ridaysaan ku sawirta maalinkiisa hal saac fadhiista ku ridaysaan sawirta kuwa kalena waxa lagu yiri maalin kasta practice gareeya 1 hour in idinku ku riday kuwa kalena waxa lagu yiri waxba idinku sameeynin iska socod 30 cisho ka bacdi la isugu yimid meeshii tan kuwii practice gareynay maalin kasta waxay ka sareeyeen natiijo yar ay ka sareeyeen kuwii aanan practice gareynayn sawiranay waayo sawirashadu waxay ku siinaysaa in la mid intaas dhammaan ciyaartooyada dhan way wada sameeyaan nin Tiger Woods la yiraahdo number 1 golf baalkan la tuuro ayaan documentary-giisa daawanayay tan waxyaabo kaga hadlay waxa kamid ahayd muhiimadu maaha intaad garoonka dhex joogtid laagaysid aad tuuraysid maaha golfka buu yiri muhiimadu waa intaan tiyarada soo saarnay sawiranay marka inaad sawiratid oo waxa maskaxdaada ku sawiratid waxay ku siinaysaa natiijo inaad wixii sameynaysid oo kale ama wixii inaad sameeyso oo kale halka ardayda kuwii kale saddexaad ee lagu yiri waxba tuurina ku soo noqdaan ayna natiijadoodu aad uga wada hooseysa marka sawirashadu iyo practice gareyntu waa natiijo labadaba haddii aad asraactid waxa bay raatib istaajinayaan arrinka ugu dambeeya ku soo gabagabeynay waxa weeyaan ku celceli ilaa second nature kaaga noqon ku celceli 100,000 jeer ku celceli practice ilaa xirfadaas ay kaaga noqonayso xirfad second nature qof ku soo dhashay ma jirto qof walba waxaanu baranay sida loo socdo waxaanu baranay sida loo hadlo waxaanu baranay everything noloshaada ka madana waad baran karaysaa xirfad kastana waad master gareyn karaysaa waxaan rajaynayaa inay muuqaalkan waxaan naga baxeen dhammaanteen waxaan u baahanahay qof ina dhiiri geliya dhammaanteen waxaan u baahanahay qof ina challenge gareeya dhammaanteen waxaan u baahanahay qof inagu taageero waxyaabaha aynu rabno haddii aanad adigu qof ka helin adigu qof u noqo haddii aanad adigu qof ka helin adigu naftaada u noqo haddii aad leedahay xirfad aad barataad u baahan tahay xirfadan web design-ka kaga hadlayo muuqaalka xagan ku jira muuqaalka daawo dan xirfadda ku practice garee waxyaabaha aynu kaga hadalnayno haddii aad doonaysid inaad social media marketing samaysid haddii aad doonaysid SEO inaad samaysid haddii aad doonaysid inaad business-kaaga online-ka uu awood badan ku yeesho haddii aad doonaysid inaad sales-kaaga iyo dakhliga business-kaaga soo gala sare u qaadid waxaan ku diyaarinay Faca Korea Digital inta
intaasoo surface ba iyo ka badan baa ku qabanaa email marketing, data analysis, Facebook. waxaan muddo 6 bilood ka hor la hagaajinay GLV waa one of the biggest brand horad u aragteen markaan hotelka furaynay. muddo 3 bilood gudahooda waxay laba jeer jibaareen income-kii iyo macaamiishii u imanisay. haddii aad doonaysid inaad income-ka iyo dakhliga businesskaaga sare u qaadid, lana soo xiriir oo la soo xiriir Faca Korea Digital. linki hoostan dhigaya. sanad kasta waxa jaamacaadka wadankeena ka soo baxa 110,000 oo dhalinyaro oo soo baxa suuqa shaqada. 110,000 ee dhalinyaro waxa wajaha caqabada aad u fara badan, kuwaasoo kow ka tahay meesha shaqo ka helaayeen, xilliga shaqo heli lahaayeen, taasoo ku noqotay inay waqti badan ku qaadato inay shaqo waayaan. yaa ka mas'uul wadankeena burburay, kolba sii burburaya ayaa ka mas'uul. ma siyaasiyiinta ka mas'uula, ma cuqaasha ka mas'uula, ma waalidiinta ka mas'uula. mise ardayda ayaa caajisiin oo shaqadoodii ama wixii ay baranayeen aanan si fiican uga soo bixin, mise iyagana shaqada si fiican u raadin. su'aashaas waa su'aal weyn oo dhex taala bulshadeena Soomaaliyeed oo wajahaysa maanta. hore waxaan muuqaaladeena uga soo hadalnay xirfadaha ugu muhiimsan ay tahay maanta inaad master garaysid. muuqaalkii kale ku xiga waxaanu kaga hadalnay xirfadaha sidee baa xirfad loo bartaa, learning how to learn baynu kaga soo hadalnay. muuqaalkan insha Allah haddii Ilaahay waxaan kaga hadli doonaa markaad xirfad baratid sidee baad xirfadaada u iibgeyn karaysaa, sidee baad suuqa u geyn karaysaa, sidee baad dadka ugu iibin karaysaa. waayo sidaa doontaa dad cabqari u tahay ama xirfadaada aad ugu fiican tahay, xirfadaadaas haddii aanad ahayn mid aad iibisid macno badan ma samaynaysa. maanta waxaa jira dad badan oo xirfado leh ama dhalinyaro badan oo ila soo xiriiro sidee baan xirfadaha iyaga u iibinaa igula soo xiriira. insha Allah muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa 7 tabood ood ku heli kartid fursadahaaga shaqo, hadday noqoto sida online-ka iyo hadday noqoto dadka kula joogaba aad ku heli karaysid. arrinka ugu horeeyan ku horeysiinayo sheekan iga sheekanaya. saaka subaxii anigoo shaqada soo galay ayaa waxaan YouTube-ka xagga sare ii soo maray gabar Soomaaliyeed oo igu qoran tahay My Story with Suratul Baqara, sheekadeeda Suratul Baqara ku saabsan. marka cajiib bay u noqoto waxaan niri bal ku dul dhufo gabadhan waxay sheegayso. dan waxay Allah musta'aan sheegtay inay 30 cisho joogtisay Suratul Baqara. waxay tiri xilligii corona ahayd markaan sanadkii ugu dambeeyay jaamacadda dhameynay bay ahayd. maanta waqti adag baan ku jiray bay tiri. waxaan habeeyratay hayna ma jirin. marka waxaan go'aansaday bay tiri inaan Suratul Baqara joogteeyo oo 30 cisho joogteeyo si kastoo noqoto. gabadhii waxay tiri muddo markaan akhriyay Suratul Baqara ayaa waxa soo baxday bay tiri scholarship aad u qaali ah Allah musta'aan jaamacadka Ingiriiska mid kamid ah bixinayeen oo aad u qaali ah. waxaan ku ducaystay bay tiri scholarkaasna mid dad badan ay ku tartamayeen bahayd oo maba filinayn bay tiri inaan helayo. maalmaha kamid ah markaas email bay soo dhacay tiri scholarkii sidii baan ku helay, jaamacaddii sidii baan ku galay, shaqaan sidii ku helay. ma sha Allah maanta gaadhigii riyadayda nibsaday. wax aad u fiican bay ka sheekaysay gabadhaas. marka cajiib bay ku noqotay waxaas baan nidhi adiguna waa u baahan tahay. marka anna bilaabaya insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo berito la subaxa saakan arkay muuqaalkan berito la subaxa insha Allah haddii Ilaahay bilaabaya 30 cisho soo socdana waan joogteynaa. marka idinkana waxaan nagula talinayaa dhalinyarada bilaa camalka ah inaynu meesha koobaad ee wax laga raadinayo waa Ilaahay isagaa koonkan gacanta ku haya, isagaa siduu doono u roga, isagaa kuu doono wax siiya. walillahi maalikal mulk tulki mulka mimman tashaa وتنسع الملك ممن تشاء. marka Ilaahay isaga adduunka rogrogaya, rogrogitaanka uu rogrogaya. marka waxaad u baahanay in Ilaahay cilaaqad toos oo double aan la yeelano. uma baahnid maanta inuu oday ku kaxeeyo, uma baahnid maanta inuu qof kale ku kaxeeyo. waxaad u baahan tahay inaad Ilaahay toos ugu xirantid qalbigaaga. Ilaahay meeshu qofka bini'aadamka ka eega waa qalbigiisa, inaad qalbigaaga toos ugu xidhid. Suratul Baqarana 30 cisho oo joogta aad bilowdid inaad Allah musta'aan akhris. qisadaadana waan dhageysan doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. arrinka labaad ee isleeyahay markaad rabtid inaad shaqo heshid ama xirfadaaga shaqad ku heshid waxa weeyaan ha isku qaadin 10 xirfadood, xirfad kaliya ta excellence u noqo. niche down. maanta niche, kelmadda niche waxay noqonaysaa qiblo. inaad qiblo u jeedsatid oo xirfadaada qiblo u jeedisid, hal shay oo kaliya oo ku fiicnaatid oo excellence ku noqotid ayaa kuu soo jiidi karaya 100 qof. marka maanta haddii aad xirfad baratid, maanta haddii aad wadnaha ku wada dul tuurtid, maanta haddii aad dhistid xirfadaha kaaga baahan tahay, maanta inaad dhistid waxba yaraatay ku joojin karaya ma jirto. marka waxa koowaad ee u baahan tahay waxa weeye xirfadee baa rabtaa inaad master garaysid. xirfadda baro, hadday web design noqoto, hadday graphic design noqoto, hadday video editing noqoto, social media marketing hadday noqoto, hadday e-commerce noqoto, adoo xirfadaha mid baro taa ku fiicno, excellence ku noqo. ha isku wada qaadin xirfado dhan. marka meeshaas markaad joogtid waxaad haysataa wax awood leh, authority baad haysataa. waayo dadku iyaga ku baahan. maanta markaad qof dadka xirfadaha ku fiican way adag tahay lagu helo, way adag tahay. marka waxaad u baahan tahay inaad xirfadaada ku fiicnaato. haddaad xirfadaada ku fiican tahay, adduunku isaga ayaa kuu baahan. adigu uma baahan. marka koowaad waxa weeyaan xirfadaada ku fiicnaanaysid. arrinka labaad waxa weeyaan inaad xirfadaada ku fiicnaanaysid aad soo qaadid oo wadnahaaga wada dul dhigtid. arrinka saddexaad ee iyadna kuu fududayn karaysa inaad fursado shaqo aad heshid waxa weeyaan inaad online presence fiican yeelid. maalin dhaweyd baa kuwaad waxaan soo qoray baraha bulshadu waa awoodda ugu weyn ee dunidan korkeega taala. shaqo bixiyaashu waxay shaqada ku bixiyaan social media dadka iyaga eegaya.
dadka loo shaqeeyayaashu ama macaamiishu waxay wax ku eegaan kumbaniga imse qofka social media ku xiran. Social media waa maanta waa digitalka, waa adduunkaagii digitalka, waa virtual reality-gaagii. Adduunku maanta xaguu u socdo waa virtual reality. Communication-ka iyo isku xidhka maanta bilaadanku waa meesha ugu sareysa. Markaynu dadkeena Soomaaliyeed nagu soo dhacdo social media sharaarad baynu ka qabnaa oo intii Allah musta'aan waxyaabaha qaldan ku soo gudbinaysay ayay nagu badatay. Marka social media waa meel fiican haddaad wanaag ku soo gudbisid. Marka waxaan yidhi xirfadaha ku soo gudbi, waxyaabaad ku fiican tahay ku soo gudbi, hididiilooyinkaaga ku soo gudbi, social media-gaaga ka ilaali waxyaabaha saqajanka, ka ilaali waxyaabaha aanan jeclaysaneyn. Waayo markaan soo booqdo social media-gaaga imaado ama Instagram-kaaga ama Facebook-kaaga ama Twitter-kaaga ama platform-yada kale isticmaashid markaan imaado aan soo eego, marka ugu horeysa waxaan eegaya waxaad soo post garaysa, waxaad soo dhigtay baan eegaya. Marka ka ilaali waxyaabaha maalayacniga. kusoo bandhig xirfadahaaga, kusoo bandhig xirfadaha barateed rabtid inaad iibsid. Allah musta'aan la xiriir dadka kale. Waayo dadku kuma garanayaan who cares, qofku garanaya ma jirto. Dadku meesha wax ka arkayaan waxa weeyaan oo waxa meesha ku yaala, waxa meesha ku yaalina waa inuu noqdaa waxa shaqadaada ka hadlaya. Marka xirfadahaaga hadii aad ku fiicnaatid, hadii shaqadaadu excellence ay noqoto, hadii aad wadnahaaga ku wada dul tuurtid, ayaad meelaha ugu fiican tagi doontaa oo kombaniyada meelaha ugu fiican aad ka tagi doontaa. Marka waxaad u baahan tahay inaad social media marka maaha kaliya dadka negative ku soo gudbinaya, hadii aad wax fiican ku soo gudbisid oo dadku ku bartaan iyaga ku soo raadsanaya kombaniyadu wallahi iyaga ku soo raadsanaya. Marka isku day social media inaad dhistid, gaar ahaan Instagram-kaaga, Facebook-kaaga as a creator. maanta waxaan noolahay creator economy. maanta ama sawir ha noqoto ama qoraal ha noqoto ama video ha noqoto, videoga ugu sareeya. waayo videoga qoraal buu ku noqon karaya, cod buu ku noqon karaya, sawir buu ku noqon, video waa meesha ugu sareysa weyn. marka inaad muuqaalo fiican sameysaan qasab ma xataa inaad wajigaaga soo dhigtid, video editing aad baran kartaa, wax baad isku geeyn kartaa. marka social media present strong waa inaad yeelataa, waa inaad community dhistaa, waa inaad dad kugu xirmaan. Allah musta'aan taas waxay kuu fududeyn karaysaa inaad fursadaha shaqo aad heshid. insha Allah hadii waxaynu xagga dambe ugu tagi doonaa Fiverr iyo Upwork sidee baa iyagana looga helaa. arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan inaad platformyada iska qortid freelancer platformska sida Fiverr, freelance.com, Upwork.com, People.Hub. marka way badan yihiin inaad freelancer platformska aad iska qortid oo iska sign up garaysid, iyadna waxay ku siinaysaa inaad fursado shaqo badan. niman dhalinyaro waxaan arkay Soomaaliya 40,000 iyo 50,000 iyo barkood $90,000 ay ka sameeyeen Fiverr iyo Upwork. dadka u shaqeeyana waa dadka cadaanka adduunka. haddii aad xirfadaada ku fiicnaatid, haddii xirfadaada ku wanaagsanaatid, wax ku istaajin karaya ma jirto. marka sidee baad ayad u noqon karaysaa dadka topka soo mara ee Fiverr iyo freelancer sida ugu fiican looga soo codso, sidee baad ku noqon karaysaa? marka ugu horeysa dis portfolio-haaga, hadday noqoto website portfolio aad samaysatid iyo platformka portfolio aad ka dhex samaysanaysid dis qiimo jaban dadka ugu qabo. title-ka ama bio-gaaga Allah musta'aan dadku markay ku soo booqdaan ku qor thumbnail baa jira. Allah musta'aan Upwork iyo freelancer ay ku siinayaan dadka ay ka soo arkayaan, hadday web design noqoto, hadday Shopify noqoto, hadday social media marketing noqoto, hadday waxyaabaha kala duwan noqoto ay dadku ka soo arkayaan ma jirto. thumbnail qurux badan oo professional samayso, sawir qurux badan soo gal, sawirka quruxda badan la soo dhigo. isku day shaqadaadan aad qabanaysid. dad badan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baa intay tagaan Fiverr iyo Upwork ay tagaan sidaadan ka shaqaysta ayay Allah musta'aan project baa loo diray, projectkiisa fiican uma qabanayaan. marka inta waxa la yiraahdaa suuqa horena waan ugu soo celceliyay, suuqu dadka excellence-ka si excellence ayuu u abaalmariyaa, dadka average-ka ee caadiga ahna wuxuu abaalmariyaa si caadi. marka haddii aad doonaysid in platformyada ha noqoto ama meelo kale ha noqotee, haddii aad doonaysid inaad top 10 ka tagtid oo meelaha ugu sarsareeyaad ka tagtid, waxaad u baahan tahay inaad shaqadaad qabanaysid aad ku fiicnaatid. isku wada qaadin oo waxyaabo badan isku wada qaadin, laakiin se niche dooro, niche-ka u sabir. midda kale patient bay rabtaa, sabir. isku day inta hore inaad free ku shaqaysid. isku day inta hore niiga soo sheekeeyay imika Umar Rashid video editor-keena weyn ee Allah musta'aan channel-keena edit gareeya. waaw free buu la shaqeynay 1 week for free buu la shaqeynay. Allah musta'aan content ii soo diray isagoo nashin lacag helay, laakiin se wuxuu arkay may hayn Allah musta'aan editing-kaas iyo waxaas ma arkayn. wax ka weyn buu arkay. maanta waxyaabo badan baan ka wada shaqeynaa, waxyaabo badan baan wada dhisnaa. kaliya inta ugu horeysa ha isku dayin inaad lacag dadda ku heshid, isku day inaad dadka qiimo ku kordhisid. taas waxaad 100% dhaafi doontaa qof kasta oo ku jira. platformadan bay noqotay shaqo lacagtaada yaree, lacag fudud samee, hel feedback weydiiso. Allah musta'aan macmiilkaaga feedback-giisa ku dheh si aad xagga sare u martid. shaqadaada markaad qabanaysid on time ku qabo oo shaqada wanaajiyo, shaqada on time ka dhig. marka taas waxay ku siinaysaa inaad natiijo wax ku ool aad heshid. arrinka kale ee isna Fiverr iyo Upwork markaad ku jirtid, dadka la communicate gareeyo, si fiican loo communicate gareeyo. qofka markuu kula soo xiriiro si fiican ula hadal, si fiican u soo dhaweey like a customer. marka taasina waxay ku siinaysaa inaad marka imika waa dhaweyd Bali baan tagay Indonesia, niman dhalinyaro oo freelancer oo digital nomad waxa jira kol Thailand ku noolaada, kolba meel ku noolaada, Asia ku noolaada. lacagtay ka sameynayaan qeyr xad ay tahay platformyadaas corporate ku shaqeeya, barkood ba agency samayso xirfadiisa iyo delegate gareeya. marka waxaad u baahan tahay
inaad allahuma mustacaan ku ficnaato platformyadaasna Soomaali baa jirta, Hindi baa jirta, Pakistaani baa jirta, qof kasta oo dhan baa ka shaqayn karaya. Arrinka kale isna ku xigeed ku heli kartid macmiil ama xirfadaada inaad ku iibin karaysid waxa weeyaan inaad 100 email dirtid ama 100 message. Inteena badan hard working, dedication iyo hard working markay noqoto wax haba yaraatee barbar galaya ma jirto. Isku day subax kasta markaad sala kacdid habeen ilaa dharaar inaad ama qof baad fariin u diraysaa ama qof baad email u diraysaa ama qof baad u jawaabaysaa ama fariin baad xiraysaa. Isku day inaad 100 maalin kasta 100 maalmood qabso 100 rule baa la yiraahdaa. 100 maalmood qabso 100 ka maalmood sida inaad 100 email dirtid, inaad 100 qof la xiriirtid, inaad maalin kasta waxay sida Allah mustacaan la hadashid kama dambeynta wad helaysaa. Waayo waxa la yiraahdaa the law of average waxa la yiraahdaa marka nasiibka laga hadlayo imika 100 qof hadii aad la xiriirid 100 ka qof maybe 10 qof baa ku soo jawaabi doona 10 ka qof hal qof baa macquul ah inuu macmiilkaaga noqdo marka ama web design noqo ama graphic design noqo ama xirfadaha kale noqo isku day inaad maalin kasta 100 qof aad fariimo u dirtid fariimaha hadii doonaysid inaad fariin professional qotid ChatGPT isku day sidee ba fariin loo diraa call DM ama call email ama call calling sidee ba loo sameeyaa marka isku day inaad 100 qof la xiriir marka dadka la xiriiraysid saddex xubin kala baxayaan dadka barkood waa dadku garanaya ama kuwa adiga familkaaga ha noqoto ama dad kale ha noqoto marka kuwa waxa la yiraahdaa waa hot weeyaan waa macaamiisha hotka dadka adiga ku garanaya marka dadkaas way fududahay inaad ka iibisid dad kale warm ma jira oo meelaha ka ararkay dad kale waxa jirta call-ya marka dadka call-ka waa meelaha ay tahay weeyaan isku day inaad niche qaadatid hadii aad web design ku jirtid isku day inaad niche qaadatid education ha noqdo e-commerce ha noqdo restaurant ha noqdo meel gaar focus ka saar dan meesha kaliya awoodada suuqay wax ku istaajin karaya habeerateen ma jiro arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan inaad isku daydid inaad for free ku shaqeyn karaysid macaamiisha aad la xiriiraysid ama dadka aad la xiriiraysid isku day inaad ku tirahdid shaqadan aan ku qabanayo hadii aad ku qanci weydo ama waxba ku noqon weydo shaqadaas aniga khasaar waayo marka hore waxaad u baahan tahay waa sweat equity-gaaga ama sida kale haddaan u dhigno maskaxdaada waqtigaaga fikirkaaga xoogaaga waxaad u baahan tahay Allah mustacaan waa maalgelinaysaa waa sweat equity-gaaga markaad dhalinyar tahay qofka dhalinyartii waqti buu haystaa lacag ma haysta laakiin marka waxaad maalgelinaysaa waxa weeyaan waa waqtigaagaas markaa isku day inaad for free ku shaqeysid adigana xirfad bay experience bay ku noqonaysaa adduunka kale waa ka jira frontiers xirfad bay adigana ku noqonaysaa dadka kalena Allah mustacaan wax weyn buu noqonaysaa marka waxaad isku daydaa inaad Allah mustacaan aad for free ku shaqeysid isku arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan inaad system samaysatid maanta haddii aan system lahayn way kugu adkaanaysaa imika YouTube-ka soo baxaya ama muuqaalkan sameynayno system buu ku soo istiraatiijiyad buu ku soo exactly haday noqoto shooting-ka haday noqoto scripting-ka haday noqoto editing-ka haday noqoto publishing-ka haday noqoto title-ka haday noqoto thumbnail-ka haday noqoto review-ga iyo data analysis-ka aan ku sameyn doono muuqaalkan markuu soo baxo maaha wax by accidentally waa wax aan ka shaqeynay oo shaqo ay soo gashay marka taasna waa system baad u baahan tahay marka haddaad Allah mustacaan koobaad waxa u baahan tahay inaad maalin kasta 100 qof la xiriirtid waa inaad macaamiilkii keentid kale waxaad u baahan tahay inaad website samaysid portfolio fiican haddii aan portfolio website aanad lahayn Wix muuqaalka tutorialkan kaga hadlay soo daawo arrinka kale isna aad u baahan tahay waxaweyaan system aad ku deliver garaysid shaqadaadu inaad distractionka iska yaraysid inaad xilli focus u samaysatid inaad shaqo fiican oo high quality leh inaad bixisid that is the one Allah mustacaan ku siinaysa natiijo wax ku wada marka natiijo systemkaas haddii aad samaysatid way ku fududaanaysaa imika content haddaan create garayna haddaan qoto hadday businessyadayda noqoto everything ilaahay koonka sunan buu dhigay ma jirto wax accident ku dhaca shaqo inaad heshidna waxay ama inaad businesskaaga ama shaqo ama services xirfadahaagan inaad lacag ka samaysidna waa wax loo saadaalin karayo sida cadceedu bari uga soo baxdo galbeedna uga dhacdo laakiin sa waxay ugu xiranta adiga dadaalkaaga wadadaal intee leeg barabta how badly do you want maanta dadkeena caajis maanta qof kasta waa fadhi wallahi haddii aad fadhiisatid haddii aad day in day out kaliya sanadkan oo kaliya sanad qabso qofka dhalinyarada 20 jirka iyo 18 jirka marka lagu yiraahdo sanadku wax badan buu leeyahay 5 sano hadii lagu yiraahdo wax ka sii weyn bil laakiin waxaas waqtigu isaga tagay sanadka bacdi sanad baa ku beeray waa yartay marka isku day subax inaad hore u yara kacdid inaad wax yara akhrisid inaad wax yara kororsatid fadaha ku fiicnaatid inaad system dhisatid inaad ilaahay suuratul baqara inaad akhridid inaad Allah mustacaan salaadaadka jamca ku tukatid inaad yara wala do little thing waxyaabaha yaryar wanaaji waxaad arki doontaa muddo sanadka bacdiya adigoo naftaada meel fiican oo qurux badan ku arka marka waxaad u baahan tahay system ilaahay koonkan wuxuu dhigay si sunan marka adiguna waxaad u baahan tahay shaqo walba sunan bay leedahay basic waxyaabaha inaad wanaagsan arrinka ugu dambeeya kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan hal sanaysa laba sanaysa war aad degdegin maanta adduunka dadkii oo dhan ba degdegay maanta qofka hal shay qaaday halka shay hal sano wada wallahi lacag buu sameeyaa lacag fiican buu sameeyaa waliba per monthly lacag fiican buu sameeyaa
marka hal shay qaad halka shay u samee ha ka tagin halka shay stay on that wixii doona ha dhacaa waxba natiijo ay been weyd just sabir dhigo ilaahay ibn aadam wuxuu leeyahay khuliqa al-insaana cajuula ilaahay ibn aadamku wuxuu ka abuuray degdeg marka degdegaasina waa wax dilay ha degdegin hal sano qaado 2 sano qaado insha Allah hadii iga wax arki doonto Allah musta'aan meel fiican ka dhamaanteen waxaan u baahanahay qof ina dhiirigeliya dhamaanteen waxaan u baahanahay qof ina challenge gareeya dhamaanteen waxaan u baahanahay qof inagu taageero waxyaabaha inuu rabno maanta dhalinyaradeenu Soomaaliyeed heel bay rabaan aynu isku heelin walaal leedahay ama qof kale saaxiibka ayaad leedahay la wadaag muuqaalkan u dir kuwa jaamacaadka ka soo baxay u dir Allah musta'aan si ay fursadahan uga faa'iideystaan guul baan rajaynayaa dhamaantiin haddii aad doonaysid xirfadaha ugu qiimaha badan leh tahay inaad baratid muuqaalkan soo daawo kaga hadlay 7 xirfadood ee ugu lacagta badan maanta aad lacag fiican ka sameyn karsid aad baad mahadsantihiin dhamaantiin thank you